tobabarkan oo lagu soo gabagabeeyay jaamacadda Hargeysa ayaa la xiriiray kor u qaadista aqoonta ururada ka kala socday bulshada rayidka ah ee gobolada dalka taasi oo ku taxalluqday xuquuqda caruurta iyo warbaahinta iyo sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen arrimaha la xiriira sharciyada iyo qawaaniinta u yaala caruurta isla markaasina ay ugu howlgali lahaayeen xubnahani ayaa ka kala socday gobolada Awdal Saaxil Togdheer iyo Murudijeex waxaana barnaamijkan iska kaashanayay jaamacadda Hargeysa qaybta Legal Aid Clinic iyo hay'adda Oxfam waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Sharmaake oo ka socday hay'adda Oxfam waxaana uu ka hadlay ujeedada barnaamijkan iyo waxyaabaha looga gol leeyahay iyo muhiimadda uu xambaarsanaa muddada uu socday tobabarkaasi mashruucan wuxuu ku saleysan yahay in cadaalad la helo access to justice wax maalgeliyay aragtan European Unionka waxa ka soo qaaday Oxfam waxaana fuliyay Legal Aid Clinic jaamacadda Hargeysa marka in cadaalad la helo horta dee Allah ya cadaalad laakiin intii la karayo in qofku uu heli karo cadaalad iyo halku ka heli karayo sidoo heli karo in laga caawiyo taasi marka mashruucaas wuxuu socon doonaa 2 sano iyo 4 bilood ama 18 bilood hadda sanad baa soo dhamaaday sanadii waxoogaa baa haray ujeedooyinka mashruucu ugu dalnayahay waxa weeyaan inuu koriyo ama bixiyo kaalmo sharci oo bilaasha sidoo kale waxa isaguna halkaasi hadal ka jeediyay dardaaran ah agaasimaha Legal Aid-ka ee jaamacadda Hargeysa isagoo kula dardaarmay halkaasi ka sii wadaan aqoonta ay halkaan ku barteen marka qaybtiina waxay ahayd marka in capacity building la idin sameeyo kor la idin ku qaado si Sharmaake uu sheegay idinkuna si aad marka uga qayb qaadataan isku xidhka civil society platform-ka idinkoo marka pressure group noqonaya oo xuquuqaha la idinku tababaray markaad report garanaysaan xuquuqaha caruurta media ethics-ka iyo media law-ga in marka qayb lixaad aad ka qaataan waxaan rajaynayaa marka tababarkaas in idin qayb lixaad iyo aqoontiina kor ugu qaaday oo aad bulshada iyo qaybaha aad ka tiin kor u qaadi doono aqoontaana aad fidin doontaan dadka aad ku ilaalinaysaan mid ka mid ah xubnihii ka qayb galayay tobabarkaasi ayaa soo dhaweeyay isla markaasina uga mahadceliyay qaybihii kala duwanaa ee ka qayb qaatay barnaamijkaasi Axmed Golcade oo ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadda Hargeysa ayaa isaguna halkaasi hadal kooban ka jeediyay isla markaasina la sii dardaarmay mas'uuliyiinta ka kala socday gobolada dalka ee lagu tababarayay jaamacadda Hargeysa waxa weeyaan mowduucan aynu maanta isugu nimid in shahaadada la siiyo qeexaya in aad ka qayb qaadateen barnaamijka halkan ku sugan oo ah maxaan ku raahday capacity building amba kor u qaadida aqoonta iyo miidiyaha iyo xuquuqda maxaan ku raahday caruurtu ay leeyihiin in dad la soo ururiyo wax loo sheegaa waxa weeyaan waxyaabaha bini'aadmigu aanu inta badan haleelin